بسم الله qodobka waxa inoogu xiga markaa firewall zones wax loo yaqaan zone ma maqal talo zone waa qayb waa meel aag bayna Soomaaliya oo kadana freezer zone baad maqashaa qaybta ka caagan cashuura kolka laga hadlayo dekadaha iyo waxyaabahaas waa wixii halka soo maray yani lama cashuurayo wala isdhaafinaya firewall zones baad daba kala qaybsamaysaa zones kani saddex zone baynu soo qaadanaynaa inside zone oo gudihiya outside zone oo internetkiya iyo demilitarized zone DMZ ayaynu soo qaadanaa saddexda waxood firewalls interfaces firewallada interface-yadiisa waa exit interface-kiisa enter interface-kiisa interface-yadiisa waa kuwan interface-kan waa interface-kan waa interface-kan waa interface waa albaaba waxna ka baxaan waxna ka yeeshaan waxay leeyihiin markaasi zones imika saddex interface buu leeyahay saddex zone oo kala duwan buu leeyahay firewall-ka inta badan aadka u fiican waxa loo yaqaan Palo Alto waxa sidoo kale fiican mid kale loo yaqaan Fortinet sometimes kuwan waxa loo yaqaan next generation firewalls way shaqadii firewall-ka shaqo ka badan bay qabtaan way application-na xataa ay qabtaan abiska tusaale ahaan hadaynu doonayno wadanka inaynu ka joojino TikTok-ga waynu ka joojin karnaa marka zones baa jiraya zones ka jiraya waxa weeyaan after you defining which interface belongs and which interface zones waxa aad u sheegaysaa interface-kan yaa iskale iyo zone-ka uu hoos tagayo ayaad sameynaysaa then you are saying the rules baad sameynaysaa markaas you are set up a rule saying which type of traffic are permitted traffic noocee la ogol yahay to follow between the zones ka dhexdooda inuu marka halkan waxa inoo yaala scenario for example all traffic comes from inside zone wa allowed only return traffic is allowed traffic soo laabta waxay codsadeen tusaale ahaan PPC Somali ayaan codsaday PPC Somali inuu soo reply gareeyo waa la ogol yahay laakiin PPC Somali xaggan iga baaraysa aniga lama ogolaa oo aniga iga dhex baaraysa xog laakiin waxa la ogol yahay wixii aan dalbaday in la soo celiyo only return laakiin lama ogola wax xaga ka imanaya okay lambar 2 zone-ka loo yaqaano demilitarized zone-ka waxaan ogolnahay ama DMC-ga waa DMC-ga waa halkii xogtii noo taalo waa si kala hadaan u dhaahdo waa data center-keeni waa xogteena dhan server-radeena halkay noo yaalaan email service-ki baa yaala web service-ki baa yaala financial services-ki baa yaala tusaale ahaan waa data center-keeni marka demilitarized zone-ka waxaan ogolnahay LAN-ka wax kastoo ka taga ogolow oo zones-ka tagaya kan waan ogolahay kan waan ogolahay kan waan ogolahay return-koodana sidoo kale waan ogolahay laakiin wax server-ka ka yimaado sidii maalmihii dhaweyd friendship inala sameynaya is not allowed lama ogolaanayo friendship wuxuu ahaa inta server-kaaga la galo in adiga server-kaaga laga soo dhex galo demilitarized zone waa meel yacni bilaa ciidankii baa laga saaray xagan security militaries baa joogi kara xagana waa secure weeyaan therefore demilitarized zone waxa loogu bixiyay waa meel ciidamadii laga saaray okay serverada laftooda internet wax ma uga baahan karaan ha all traffics are allowed going through internet trafficska internetka aadaya waa loo galiyo ritaankooda kaliya tana waa la ogoliyo laakiin wax internetka ka yimaado oo serverada ku socda ma loo galiyo waxay kula tahay lama ogola wixii aad diratay lagu soo celiyo loo galiyo laakiin lama ogola wax inta ka baxsan kaasa loo yaqaan markaasi firewall zones kana markaasi rules ba la sameeynaya ama policy ama waxa la sameynayaa portfolio sheegaya kaasi halka ha tagi karo kani halka ha tagi karo kani kan ha ogolaan waxyaabahaasi waxa loo yaqaan waa policy ayaa la